السلام عليكم وعندنا جلسة سعودة قناة كان يوتيوب شكري سانشاين لينغويستيك انستيتوت waxaan ku guda jirnaa barashada luqadda English ha hilmaamin inaan ku jirno 90 days challenge oo ku doonayno inaan ugu baxno qaybta beginners ka qaybta intermediate ku soo dhawaaw casharkeena maanta casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay TL words xarfaha TL itaaran ay ku jiraan ay ku saabsan yahay waxaad ogaataa T-da marar badan waxay noqotaa silent ama mid aanan lagu dhawaaqayn silent T silent T xarfahani aad u jeedid halkan iyo jumlooyinkan oo la adeegsanaya xarfahan dhamaantood waxay qabaan TL words listen ma listen often whistle rustle castle apostle trestle macnahooda aan ku raaciyo listen dhegeyso listen often mararka qaar I often watch movies mararka qaar ayaa waxaan daawadaa movies whistle waa piible ama fuuri camal waay whistle fuuri ama filim biyirsi rustle waxaa waa sununa ama codka maska iyo waxaad kala talaa rustle marka waxa waa codka yar oo la maqlayna okay castle waxaa la qasriga oo ku nool yahay marka ninka maarta madaxda waxaan qolalka ay ku nool yihiin la castles apostle waxaa la ruuxa markaad wax bilaabaysay kula soo bilaabay saxaabi apostle trestle waxaa la markii bridge iyo waxa la dhisay baa labada dhinac loogu qabto Allah trestles okay jumlooyinkani aan ku raaciyo read this sentence akhri jumlooyinkani okay number 1 the small boy can whistle loudly wiilka yara cod dheer ayuu ku foorin karaa the small boy can whistle loudly okay I can hear a snake rustling waxaan maqli hayaa mas socdo ama mas sununaxaya okay do you listen to your teachers ma dhegaysataa macallimiintaada do you listen to your teachers I watch films often waxaan daawadaa filmo mararka qaar Jesus peace be upon him head to earth head hasmaya wow so Jesus waa nabigiisa wuxuu qabi jiray 12 saxaabi ama 12 apostle oo nolosha la wadaagi jireen waxa la xawaariyiin marka cashirkeena maanta intaan ayuu ku eegay haddaad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar haddaad hore noola sii joogtay muuqaalka like sii commentiga nagu wadaag aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullah